السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبة قيمة بدنا كحن جنال كان سود وهذا ومركل يا مقال عصب مقال كان وحنوجه لنا طبعا جوز كوبادي حلقة كنت نيسا على دي مسلسل كولا لها داود هدي تمركي كوبادي نصوب وقتي فضلا داود جنال كسبسكرايب نوصار سيدو كله مقال كان لايك نوصار وما سنتين تاك بعد يكسود وو هذا بجوز كأي أرنتي مد أدي حساب بدن بالله وجهره وجوز كوبوحنكو أركينا نكي عمرها أو كسر لابتي جرجي laga buriyay xalqadii u dambeysay gurigii laga buriyay ayuu ku soo laabanaya asagoo alaabtii intuu dhaneed qaadanaya isla markaana wuxuu la hadlayaa wiilka Saarbi lagu magacaabayay ahna ahaa wiilka walaalaha ahaayeen dhanka abaha walaalaha ka ahaayeen wuxuuna ku dhahayaa maalkan iyo gurigan bahaysta waxba kuma falaayo oo kale markaas ka bacdina asagoo alaabtiisa wata ayuu soo qaadanaya halka muuqaalka xigaan arkeenno Umar iyo Asiya sidoo kale gabadhii Emeel ahayd oo u tagay adeerkooda Orhaan isla markaana waxay xilligaasi joogeen guriga islaantii goonu lagu magacaabayo adeerkooda guursaday gurigooda ay joogeen Orhaan ayaana hadlayo wuxuu dhahayaa meeshan waa gurigeena oo kale waxba ha ka cabsanina camal oo kale ayuu dhahayaa inta doonaysiin waa joogi kartiin waana gurigeena ay ku soo dhawaada isla markaana gabadhii goonureeda soo kacaysa in ay dhibsatay caruurta la joogistooda iyo in kale ma sheegi kari laakiinse waa mid kaamirada lagu qabanayo wajigeeda halka muuqaalka xigaan arkeenno gabadhii Ahmed Yilmaz uu qabay ama xaaskiisa oo hadlayso dhahaysa isla markaana ma laga yaabaa in aan amal u dul qaadano bal kulli wax la jeedo lama sheegi karo hadalkaas meelo badan ayaan ka soo eegay luuqado badan oo ku soo eegay wax macna aan muusan yeelanin hadalkaas sidoo kale hoos ayaa loo dhahayaa goos la yaab loo runtii qolaba waxbay ku tilmaamtay qolo qaarkood waxay dhaheen hadalkaas gabadhan waxay ka waday ma laga yaabaa in aan u dul qaadan la joogitaankooda ama yacni noolaanshahooda nagu dul noolaanayaan ma laga yaabaa in u dul qaadano oo kale kulli markaan inta gooska dhaman idin sheegay hadalka fahmi doontiin waan u soo laaban doonaa bal niyada ku haya waatahay muuqaalka xig waxaan arkaynaa Ahmed Yilmaz oo asagoo hadlayo wuxuu dhahayaa shaqo ayaan ka leenahay caruurtaasi ama dan weyn ayaan ka leenahay caruurtaasina caruur kale ma ayaan filay waa caruurtii ahaa Umar iyo sidoo kale walaalihiisa Asiya iyo Emeel muuqaalka xigana waxaan arkaynaa yarkii Saarbi lagu magacaabayo Umar walaalkiisa ahaa oo gaarigiisii wata isla markaana wuxuu gaarigiisa soo agmarinayaa Umar iyo Asiya oo wada socday oo xilligaasi u socday dhankaas iyo iskuulka u socday xilligaasna roob ayaa daay biyo ayuu ku daadinayaa markaas ka bacdi yarkaas ay hadlayo wuxuu dhahayaa kibirkaaga isla weynidaada waxiga ma qaadi kartid sidoo kale ha u malaynin inaad waxaysatid isla markaana Umarkii xanaaq badnaa intuu xanaaqo ayuu shaatiga qabanayaa wuxuuna ku dhahayaa waan ku dilayaa mar dambe dad waxa soo kala tiray isla markaana Saarbi wuxuu dhahayaa idil ayuu dhahayaa hadii aad awoodin aad sidoo kale idil oo kaliya ayuu hadalkiisu ahaa waa tahay muuqaalka xig waxaan arkaynaa Asiya oo ciyaaraysa ciyaartii caanka ahayd ee saxda ahayd isla markaana qof la ciyaaraysa ilaa hadda lama sheegi karo dadku waxay u badanayaan inuu toolgaa yahay sababtoo codkiisa ay maqlayno wuxuu dhahay arintu runtii waa soo weynaatay sida daadkii oo kale ayuu arinku weynaaday ayuu dhahayaa waxa laga yaabaa inuu ciyaarta ka shaqeynayo muuqaalka xigana waxaan arkaynaa Saarbi oo iskeenay waqti xaadirkaas dhankaas iyo iskuulkii iskeenay isla markaana waxa la keenay fasalkii ay dhiganayeen Asiya iyo Umar iyo Dooruki dhammaan ardaydii kale ee naqaanay markaas ka bacdi beerka ayaa dhahaya aniga wadi la fadhiisan kartaa markii hore waxaan u maleyninay Saarbi iyo toolgaa inay saaxiib noqonayaan laakiinse waxaa markaan saaxiib noqon doona beerkii iyo Saarbi ayaa saaxiib noqon doona Saarbina beerkii agtiisa ayuu fadhiisan doonaa haddaba muuqaalka xig waxaan arkaynaa ninkii Ahmed Yilmaz ahna ahaa Umar aabihiisa oo iskuulka imaaday ama Tamaan College marka uu imaaday ka bacdi Umar ayuu kula kulmay dhankaas iyo kafeega wuxuuna ku dhahayaa waqti xaadirkan taagan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan buu waxaan rabaa hooyadeeda saacadeedii ayaan rabaa ama saacadii aad qaadatay muuqaalka xigo isaguna aad iyo aad u xiiso badan ayaa waxaan arkaynaa Ahmed Yilmaz oo mobile ku hadlaaya haddaba ereygan hadda Ahmed Yilmaz loo sheegayo runtii aad iyo aad ayaa lagu khalkhalsan yahay 10 saac ugu dambeeyay dhammaan social media waa uu haystaa fasiristiisana ilaa iyo hadda qof ka sal gaari lama hayo waa erey runtii dhammaanba dadka aan Turkiga aqoonin runtii ku adkaatay in ay fasiraan ama meelo badan loo eego xitaa Turkida qaar ereygan way fahmi waayeen maadaama si degdeg loo dhahayo ereygan sidoo kale dadka luqadda Turkiga yaqaana ee san u dhalan Turkiga
way ku adkaatay inay soo fasiraan. Waa erey meelo badan loo qaaday, macnooyin badanna yeeshay. Marka bal 3 macno ka mid ah ama dhowr macno ka mid ah aan soo qaadano. Horta qofka hadlaya lama garanayo. 99% waxaa loo badinayaa qofkaasi in uu yahay ama in ay tahay wadaadii lagu magacaabayay Safety ama islaantii hadda ka hor sabab u noqotay Cumar iyo in ay galaan qasrigaasi oo ayna ku noolaadaan. Haddaba islaantaasi waxay dhahaysaa wiilkiisa ayuu buriyay soo ma aha. Wiilkiisa ayuu guriga ka saaray soo ma aha. Waa macnaha koobaad ama qaabka koobaad ee loo fasiray. Kan labaad ayaa waxay tahay waxaa la dhahay islaantaas xilligaas waxay tiri waxay la hadlaysay Axmed Ilmaas waxayna ku tiri ma waxaad burisay wiilkaaga soo ma aha. Ma waxaad burisay wiilkaaga. Isla markaana halkaasi Axmed Ilmaas wuxuu ku ogaan doonaa Cumar inuu asaga dhalay. Sida ugu dhaqsiyaha badanna Cumar odaygaas wuxuu isku day doonaa Axmed Ilmaas Cumar inuu guriga ku soo celiyo iyo walaalihiisaba. Macnaha saddexaad oo midka aad iyo aad loogu badan yahay waxay tahay inay islaantu tiri wiilkaaga sidoo kale guriga waan ka buriyay ama wiilkaad adiga dhashay xitaa aniga ma doonayo inuu gurigeyga sii fadhiyo gurigana waan ka buriyay Axmed Ilmaas hadii aad soo celin weydo Cumar. Isla markaana marka ereyga loo fasiray ama dadka ereygaas u fasirtay waxay soo xasuusteen ereygii muuqaalka bilowgiisa aan idin sheegay ee Axmed Ilmaas xaaskiisu ay lahaydee ahaa ma laga yaabaa inaan u dulqaadano la joogitaankooda. waxaa weeye dadkaas ay leedahay ma laga yaabaa inaan u dulqaadano la joogitaankoodu waa Cumar iyo labada erey marka halkaas iska shabahayaan. tani maadaama gooskooska bilowgeeda ay erey aan la garan meel u socdo ayna tiri ma laga yaabaa inaan u dulqaadano la joogitaankoodu bas ay ku ekeysay gooskooska dhameedkiisana aan ku arkayno ma waxaad burisay wiilkaaga ama ana waxaan burin doonaa wiilkaaga Axmed Ilmaasna uu gooskooska dhaxdiisa isaguna ka dhahay caruurta hawlweli aan kala nahay. taas macnaheedu waxay tahay Cumar iyo xalqada soo socoto mooyeen xalqada ku sii xigta taajirnimada ay ku laabanayaan ama xalqada soo socota dhamaadkeeda waxa loo soo bandhig doonaa in ay mar labaad qasriga ku laabtaan. waa tahay ereyga u dambeeyay gooskooska maqleynaya waxay tahay horta waxa kulmaaya Axmed Ilmaas iyo Suusan ayaa kulmaaya meeshaas bamba weyn baa ka qarxi doonta. bal kulay muuqaalkan ma doonay inuu soo dheeraaday muuqaalka dambe ayaan arrimahaas ku faahfaahin doonaa gooskooskan dhamaysano. haddaba ninkii Cumar ahaa uu hadlayaa wuxuu dhahayaa habar yar Safety ayuu dhahayaa. xilligaas wuxuu arkayay ayeydiisa islaantii Safety ahayd waa soo laabatay. Cumar iyo ilmaha mar kale inay faqirnimo ku sii jiriyaan ama nolol dhexo normal ah iska galaan ama nolol taajirnimo ah iska galaan ama noloshoodii horeba ha ku laabtaan wadaadii Safety ahayd waa soo laabatay. adiga nolol noocee ayaa la rabtaa walaalaha. inkastoo aan ka xumahay xalqada xooga hoos dhac labaad ay sameysay oo aad runtii aad uga yaabiyay daawadayaasha xooga 0.2 minus laagay gashay inkastoo xitaa minusku uusan hal gaarin laakiin 0.2 minus laagay gashay yani xalqadani xalqada isku daawasho ayaa la dhihi karaa. kulli muuqaalkan intaan uu keegay muuqaalada xiiso socod fadlan daawada muuqaalka like noo saar sidoo kale dadku cusubta channel subscribe noo saar waa nigu saaxiibkina Khalid waxaan idinkaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.